عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة kusoo dhawaada channelkeena barasho fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay soo booqatay channelkeena fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsan inaad subscribe saarto sidoo kale kambalka furato si ay kuu soo gaadhaan fiidiyoada cusub aan soo gelin doono. Dad badan ayaan soo weydiiyay oo yiri fiidiyoada aad soo gelisaan ma soo gaadhaan anagoo subscribe saarnay. Cilad waxa weeye subscribe aad saartay kambalka si furo macnaha xaqii subscribe aad ka saartay lifteeda taabo oo all dheh si markaa bell icon ka furo si markaa ay ku soo gaadhaan fiidiyoada cusub aan soo gelin doono. Maalin kasta fiidiyo ayaan soo dhignaa maalmaha inoo soo tagali waayana waxaan soo gelinaa maalin dhaaf. Markaa daawadayaal sidaas ayaan isku ognay muuqaalka hore soo aragteen ee sheegaya in labada dumar ee codka dhaafsanay ayaa waxaan soo xaqiijinay muddo 2 cisho ahba aanu baadhaynay in uu aaba kufsaday inantiisii. macnaha se u dhici karta waa arrin aad looga yaqiiqsado oo la isla dhexmarayo baraha bulshada. Waa ilaahay mahad mar hadana soo bandhigin ama anagoo hayna sawiradii iyo muuqaalkii laga duubay anagoo soo bandhigin sababta ay faal xumo tahay arrin aad faal xumo ah ama anu hadanu nahay barasho channel aan kaga duwanay youtuberada kale arrinta ay soo bandhigaan iyagu anagoo soo bandhigin arrinta faal xumada ay kula kacay aabuhu inantiisa ayaa waxa anagoo soo bandhigin arrinta faal xumada ah ee aabahaas inantiisa kula kacay ayaa waxa dhacday kaliya soo bandhigno muuqaalka iyo sawir dul saaran oo coverka sare ah. Ka daawadayaal muuqaalkaas aad u aragteen labada hooyo ee labada dumar is dhaafsanaya inuu turjumayo kaliya inaan ka soo duubnay cod ahaan muuqaalkii anagoo hayna oo inoo suurtagal lahayd inaan soo anagoo awoodina inaan soo bandhigno ama aan soo bandhigno shacabka inaan hadana soo bandhigin sababtoo ay tahay faal xumo ama cawro ama in ay tahay walaash oo kale habayartay oo kale inay tahay marka ay gabadh Soomaaliyeed tahay anagoo soo bandhigin haddii gaalatay waa caadi laakiin gabadh Soomaaliyeed oo sharaf leh oo walaashiyo kala habayartay kala edidayo kala anagoo soo bandhigin ay waxaan kaliya soo bandhignay codka si ay marka loogu cibro qaato codka sababta aan u soo bandhigno kaliya waxa weeye si loogu cibro qaato oo loo ogaado. Marka daawada hadii fiidiyoon soo gaadhay waxaan ka codsanaynaa sheergarsi dhawaan ay ahayd markii laga duubay ayuuna qurux muuqaal faal xumo ah wiil hore oo jacayl hore kala dhaxeeyay fiidiyoga hore waad ugu noqon kartaa wiil hore oo jacayl hore kala dhaxeeyay uu ka duubay muuqaal ama se uu ku yiri waan soo bandhigay aad yeeli wada xiriirkayga ayna iyadu diiday sababteedu inuu soo bandhigay aysan iyadu filaneyn inuu soo bandhigayo. Arrintaas oo soo dhamaatay ayaa hadana waxa soo cusboonaaday in habboon TikTok oo ka caan ah TikTok inanta ugu shidan ama inanta ugu haysata ah ayaa iyadana laga duubay muuqaal sidoo kale anshax xumo ah oo aad ugu faafay Soomaalida. Sidoo kale waxa laga duubay muuqaal anshax xumo ah Huda Amoon iyaduna caana marka waxa soo badanaya bilihii u dambeeyay 3 bilood ugu dambeeyay in laga duubo ama la soo bandhigo hablaha Soomaaliyeed ceebahooda u qarsoon hablaha Soomaaliyeed ceebahooda in la soo bandhigo ama la daydayo ama la baadhbaadho ama inta wax laga duubo hadii ay yeeli weydo wixii dadka loo soo gudbinayo. Marka taladan hablaha siinay waxa weeye in aysan aaminin hal wiil oo aysan u dirin sawirro qaaqaawan taas oo faal xumo ah oo ceeb iyadana ku tahay waalidkad ku tahay reerkooda ku tahay sharaf xumo ku tahay iyada lafteeda sharaf xumo ku tahay oo inankan isagu dan ayuu leeyahay balse iyadu ma fahansana maalmo jacayl xiriir ayaa qaadaya balse iyadu ma fahansana. Marka taladan siinaya waa talada iga gudoomayaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed. Sidoo kale hablaheena sharafta leh wiilalow idinkuna Allaahina ka baqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma satara musliman awratahu satara Allah yawm al-qiyam qof muslim awradiisa astura Ilaahay maalinta qiyaamaysna awradiisa ayuu astura. Waa xadiis saxiixaynka ku yaala rasuulka sallallahu alayhi wasallam qof awradiisa astura satara Allah yawm al-qiyam Ilaahay wuxuu asturayaa maalinta qiyaamaha awradiisa. Marka
qof muslima inaad ceebtiisa daydeedaa adigii foolxumo kugu tahay, waalidka ay foolxumo ku tahay, reerkiina ay foolxumo ku tahay, waa sharaf darro. Marka waxaan soo jeedinayaa inaan la raadsan hablaha ceebahooda, ay tahay in maaragtay marka wixii muhiimadda in la saaro ama in guur loo dhaqaaqo, shukaansiga dheerna la joojiyo. daawad intaasaan kusoo gabagabeynayaa. intaan video ku kulmi doono anigoo barasha, fadlan sii share gara, sidoo kale videoga hadduu ku cajabin like saar. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.